السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada walaalayaal Sam Academy ama Somali Academic. Somali Academic waxaas aas-aasay dhalinyaro isku tagtay oo Soomaaliyeed kuwaasoo jecel dadkooda inay soo gudbiyaan tareeniya ku baxaya afka Soomaaliga. tareeniyahaas oo kala duwan insha allahu tacaala waxaan idiin soo gudbi doonaa casharo kala duwan oo taxan ahaan doona. hadda insha allahu tacaala waxaan duubaynaa Windows 8 training ama tababar ku saabsan Windows 8. casharada kalena way soo socdaan sida programming language ama luqadaha wax lagu programming sida Java, Python, C++ oo af Soomaaliya, sida Photoshop, sida networking gibi insha allahu tacaala waa noo socdaan. hadda walaalayaal kusoo dhawaada Windows 8 ama Windows 8 training oo Soomaali ku baxayo. awalan marka ugu horeyso maxaynu u sameynay videogan ama trainingan. asbaabo badanaa noogu qasbay sida codsi raggan saaxiibanaha noogu yimid xoogaa Windowsku yara adkaaday, isticmaalka Windowska oo yara adkaaday u baahan in xoogaa Soomaali lagu sharaxo wixii Ingiriis ah iyo haddana wixii xoogaa interfaces ama user interfaceski Windows 8 oo xoogaa ka yara bedela Windowsyada kale, iyo insha allahu tacaala in la jaanqaadno teknolojiyada cusub ay luqadeenan ahaato luqad shaqaynayso, caalamka shaqaynayso, ay dadkii jeclaadaan inay teknolojiyada ku bartaan luqadooda hooyo. marka waxa luqadaada hooyo ku baratid iyo markaa luqad kale ku baratid of course way kala duwan tahay. insha allahu tacaala ragga Soomaaliyeed ee aqoonta leh inaan dhiirigelino walaalaheen ah si ayagana video kale usoo duubi lahaayeen ama trainiyo Soomaalida usii lahaayeen. absolutely training can totally will be free, absolutely insha allahu tacaala free ahaan doonaa, iyo sababo badan oo nagu qasbay. insha allahu tacaala yaa loogu talagalay trainingan cid walboo jecel inay aqoonteeda kordhisato, ha yaraato ha weynaato. waa soo dhaweyneynaa qof bilaaw ah ama qof wax u bilaaban yihiin oo Windowska xoogaa kala yaqaan ayaga xataa wuu u baahan yahay. waa soo dhaweyneynaa maxaa yeelay qofka bilaawga indhaha ugu furmayo insha allahu tacaala waxbuu ka faa'iidi. qofka kale oo xoogaa u bilaaban tahane asna ku khasaari maayo. believe me, you will not waste your time, you will benefit something. ardayda jaamacad si qaasam soo dhaweyneynaa insha allahu tacaala maxaa yeelay waxay arday jaamacada sameynayso. waxaan isku tegi waa arday jaamacada dhigato, qaarkeen degree dhigtaan, qaarkeena master dhigtaan. insha allahu tacaala sidoo kale dadka shaqeeya ayagana waan soo dhaweyneynaa si ay ula qabsadaan kombiyuutaradooda ayagoo isticmaali karaan, ayagoo confidence dareemaya ama ayagoo ku kalsoon waxa ay sameynayaan, ama muuska meesha click ku siinaya ayagoo garanay. maaha qofka inuu keliya muuska iyo keyboardka keliya kombiyuutarka ka isticmaalo. insha allahu tacaala casharada way tiro badan yihiin laakiin waan soo khulaaseeyey for the sake of time. chapter 1 first look of Windows 8 ama marka ugu horeyso qofka Windows 8 arko absolutely uu ka bedelan yahay Windows 7. maxay start screen wax la yiraahdo lagu soo diray Windows 8 shaashada hore, shaashadaas oo ka bedelan Windows 7 oo Windowsyadii hore versionadii hore oo Microsoft Windows aanan lahayn. oo fiiri doon insha Allah tacaala customize your desktop area si desktopki wax looga bedelo, iyo insha Allah tacaala control pan very important. la kulan control pan oo ah sida generatorka oo computerka waa aad u muhiim u yahay. insha Allah tacaala waan fiiri doonaa, waa isla qaadi dhici doonaa si loo isticmaalo waxyaabaha laga bedelo. sidoo kale managing file of folder ama maareynta faaliyada iyo folderada. qof walba file waa abuuraa ama folder, laakiin xagee dhignaa, magackee u bixinaa ama ma share gareynaa, waxaas oo waan fiiri doonaa insha Allah tacaala. iyo working with installed accessories sida calculatorada, sida paint, waxyaabo badan oo computer ku shuban oo by default oo yani shirkadii kusoo shubtay ayaan insha Allah tacaala isla fiirin doonaa. insha Allah tacaala chapter 6 working with installed programming qaas waa Windows 8 oo isla fiiri doono. kuwaas oo laga helo start screen sida mail, sida weather, sida photos, software badan oo aad very useful ah meesha yaala isla discuss garay doona insha Allah tacaala. horudhac Windows 8 requirement ama system requirement wax la yiraahdo waa kana insha Allah tacaala iska 32 bit ama 64 bit. haddaad haysato iska fiiri markaad cajala soo gadanayso ama markaad soo download garaysato labadaba waa jirtaa 32 bit ama 64 bit. 32 bit haddaad soo download garaysato system requirement laga rabo waa kana computerka computer system hadduu مثلا ramkiisa ram hoose u yahay, hard disk wax badan qaadin uu yahay
32 bit iska qaado sida laptopada yarka oo kale. hadduu computerkaaga PC ama desktop ama laptopyada fiican u yahay sidoo kale 64 bit 64 GB isaga shubo aad uu muhiim u yahay. marka insha allahu tacaala casharo badan wax badan isla qaada dhigi doona. stay with me insha allahu tacaala. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.